magacaygu waa Axmed Salebaan Shide ka soo jeeda salaadiinta gobolada waqooyi ee Soomaaliya gaar ahaan beesha Beelweyn Taabar Jeclo dorraato waxay ku dhacday qiso aad iyo aad u yaab leh anigoo gurigayga ka baxay oo degmada Warta Nabadda ah oo dhinaca galbeedka Warta Nabadda ka xiga halkaa waxay ku soo wareereen laba nin oo afku xidhan yihiin oo huudho iyo tooriyeysta oo ugu talagalay inay anigay dilaan oo Ilaahay iga badbaadiyay nimankaasi nabarro badan bay gaarsiiyeen nimankaasi meel allaale meel laga soo diray anigu waan fahansanaa dorraad baan shir jaraa'id qabtay shirkii jaraa'id waxaan ku sheegay dadka la leynayo iyo dadka mishinada dhigaya Muuse Bixiye inay kaahin iyo maamulka Muuse Bixiye inuu yahay tiibaana la igu soo diray cidda aan tuhunsanahay markii dambana xalay toleyla soo hadlay Hargeysa la yiraahdo badeeda ka bixi weydo waanu ku dilaynaa tii horena digniin bay ahayd oo Ilaahay baa ku badbaadiyay iminkana aad ugaas miyigan oo badeeda ku bixi aad ka bixi weydo waan ku dilaynaa nisir doon oo garanayo Hargeysa jooga ila soo hadlay xalay to wuxuu yiraahdaa haddii aad badbaado Ilaahay yarkii ka badbaadiyo dib nooga badbaadi mayso haddaanad badeeda ka bixin hawlaha iyaga ka bixin cidda mishinka waday na wuxuu ahaa iminkaba haddii aan dhinto oo aan dherig u dhinto waxa weeye mishinkayga iyo dilkayga iyo dhibteeda wadaa waa madaxweyne Muuse Biixi adeerkay Maxamed Kaahin iyo waxa weeye inta ku xeeran heego waxa la dhaawac baan ahay dhibaato badan baan qabaa dhibaatada dawladda Soomaaliya inay ma geysan ciidanka Soomaaliya inay ma geysan waxa weeye hawiyana ay ma geysan daaroodna ay ma geysan cidii markii horeba aan tuunsanaa ayaa iminkana ay soo hanjabtaan oo Muqdisho joogo yiraahdo badeeda ka bixi wada waan ku dilaynaa waxa weeye dilal badan oo wadanka ka dhacayana waxaan u musbaanayaa ninka ka dambeeya Muuse Biixi inuu yahay uu kala fogeynayo dadka iyo dalka waayo waxa arkayseen isagoo xabaashi ka dul qudbadanayo oo ninka la dilay Muuse wuxuu ku laayay dad oo madaafiic iyo BM la dhacay laascaanood wuxuu mudaharaadadii ku laayay dad dhowr iyo 10 gaaraya oo amarku isagu bixiyay waxaan leeyahay Muuse oo waxa weeye dhibaato badan iyo dib badan dalkiisa dadka u geystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu la xiriirsinayay dhibaatada dalka ka socota waxaan leeyahay waxa la wax ka jira ma jiraan madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ku howlan yahay badda iyo bariga iyo dhulka iyo nabadda iyo horumarka dalka Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay la qabto horumarka iyo midnimada iyo wadajirka uu ka shaqeynayo anigana dib iyo dhibaatada ay gaadhay waxay gaarsiiyay wax weeye maamulka Muuse Biixi inay soo adeegsaneen soo direen anigana dhibta ay gaadhay mid aan dhiiranaan ka sii qaado mooyaane inaan dib u fadhiisaneen oo aamuseen